si aad iyo aad u naxariistaan mar saddexaadii xabad ku dhacday saddex khasnadii ugu dhameeyey oo markaas barnaamij waa suuq dooryaal oo suuqa lagu dhisay aabbe wuxuu ka mid ahaa dadkii ku dhintay dagaalada ehli ee waddankeena ka dhacay 1991 qiyaasta da'deedu waxaan qiyaasaa markaas inay ahayd 6 jir ilaa 7 jir meelahaas maxaa farqi ah oo u dhaxeeya nolol ahaan caruurta agoonta ah iyo kuwa la nool waalidiintooda cunuga markuu ku barbaaro beedkooda ama aabii hooyo wada joogo bulshada teeda qoyskooda uu ku dhex barbaaray iyo markii kuleejka cunuga la geeyo farqi weyn ah u dhaxeeya maxay shareecadu ka qabtaa in la taageero ilmaha yar ee aabba la'aanta ah waa mowduuc barnaamij gaar ah oo wariyaheena Aweys Maxamuud Julac uu ka diyaariyay dhibta ay noloshu kala kulmaan caruurta yaryar ee agoonta ah micnaha agoon waa marka ilmo yar aabahood uu geeriyoodo sidaas ay nabadi dadka caruurta ugu magac daraan naanaysaha agoon Allah ayuu gargaar agoonta u gargaar Allah ayuu gargaar agoonta u gargaar anadool Educational Center waa xarun waxbarasho oo ku taala duleedka degmada Wadajir ee gobolka Banaadir waa goob leh dhismo bilic qurxoon waxa halkaas ku nool ku dhawaad 300 caruur agooman ah gudaha xarunta waxa ku yaalo fasalo loogu talagalay in caruurta wax lagu baro iyo goobo lagu cibaadeysto darjiiman iyo goobo loogu talagalay in caruurta ay ku akhristaan cashirada ay qaataan waxa ku yaalo goobo loogu talagalay in lagu cunteeyo iyo meelo ardayda waqtiyada fasaxa ay ku ciyaaraan sidoo kale waxa ku yaalo qolo loogu talagalay in caruurta agoonta ah ay seexdaan qol walba waxa yaalo sariir iyo qalab walba oo loogu talagalay in nolosha lagu maareeyo albaabada qolalka ay jiiftaan caruurta agoomada ah mid walba waxa ku qoran magacyada asxaabtii hore ee diinta ehelku ahaa maxay tahay sababta اوكي بس قبل وضع مبكر عمر عثمان الى 10 20 اصحاب شباب كانوا يدورون وحاول هو بختار في الاسلام كان سوق xaruntan waxa dhismaheedii maalgeliyay hay'ad islaam ah oo fadhigeedu yahay dalka Turkiga waa subaxnimo axad ah saacaduna waa 7:30 daqiiqo boqolaal arday ah ayaa ku sugan barxad weyn oo ku taala gudaha xarunta waxay sameynayaan jimicsi kala duwan sidoo kale ardaydan ayaa soo bandhigaya suugaan ku bixisa luqadaha Soomaaliga Ingiriiska iyo Carabiga arday aslubiya wanaagaba ku aastayay arday aslubiya wanaagaba ku aastayay ibtaladii dalkeenan heshiya kuwii agoomobay ibtaladii dalkeenan heshiya kuwii agoomobay kuwii soo aruuriya noobal galaye abaalkiina magudi kana waan ogsoonahay abaalkiina magudi kana waan ogsoonahay ilaahay idin bari jannada inaad ahaataan ilaahay idin bari jannada inaad ahaataan muuqaalka arday walba subaxan aad buu u wanaagsanaa wajiyadooda waxa ka muuqday diyaar garow waxbarasho arday walba oo agoon ah kuna nool xaruntan waxa uu toosaa subax walba isaga oo kaligiis ah caruurtan oo u badnaa kuwa aad u daayar ayaa waxyaabaha la baro waxa kamid ah maadooyinka asaasiga ah tarbiyada islaamka iyo quraanka kariimka
يوما ومالك يكون الناس ضدك وحين قلنا في القيامة الناس واسبدل يا زمان يكون الناس ضدك وحين قلنا كالفراش سيدة برمبالس المبسوط اللي في الدين سيدة حتى أجده وحقدرنا حسد الكوبات فصل في السدحات ما أنت عشان كان قاعدين إنه هذا تفسير سورة القارعة مركز سؤال هذا لكن جوابه مادة تربية محي فائدة ولا مادة لما أنت ووصلنا مادة تربية وحكمتها هاي مادة أساسية وأرضك الرمين دين تيسا عقيدة تيسا إنه قف أوبرتو مادة فرق الانترسان إنه أرضك يقال فهم الإسلام فهم صحيحا فهم الإسلام إنه يقال فهم صحيحا مادة تربية وحكي كومنتها القرآن الكريم تفسير كيسا وحكي كومنتها فقه الإسلام كيفية الوضوء كيفية الصلاة يصير أرضك أو موقفك مسلم وأبرر لها كيف تسح العبادات سح عبادتك كان سحسان intaan ku sugnaa xaruntan waxbarasho waxaa la gaaray 12 qadar 30 daqiiqo ee duhurnimo xilliga magaalada Muqdisho waana waqtiga salaada duhur halkan waa masjidka dhexdiisa oo ku yaala xarunta anadool waa waqtiga duhur ardayda halkan ay ku tukanayaan waa salaada duhur dhammaan ardayda halkan ku sugan waa ardayda waxay u badin agoomada ah ee xaruntan anadool wax ka barta waqtiga salaada ayaa la gaaray duhur waxaan jeclahay inaan tugto Allahu akbar Allahu akbar sidaas si la mid ah intaan ku sugnaa gudaha xaruntan waxbarasho waxaa la gaaray waqtigii qadada banaanka hore goob lagu cunteeyo ayaa dhammaan ardayda safaf dhaadheer la geliyay arday walba waxaa goob raashin bisil lagu bixiyo oo ku taala dhinaca bidix ee dhismaha xaruntan uu ka soo qaadanayay saxan uu ku jiro bariis baasto iyo cad hilib ah macallimiin loo diyaariyay tarbiyanta carruurtan ayaa ku sugnaa meel walba oo ka mid ah iskuulkan arday walba oo agoon ah ee ku sugan xaruntan waxa uu ku qasban yahay inuu seexdo marka uu qadeeyo kadib muxuu Allah ku awaalmariyaa marka dadka hantida leh ee taageero noocan oo kala u fidiyaan ilmaha yar ee agoonta ah su'aashaas ayaan weydiiyay Sheekh Cabdulxay Sheekh Aadan oo ah aqoonyahan bartay daraasada islaamka agoonta inaan daryeelo mid weyn ayay gaarsiisay aad iyo aad isaga xisaabtay aayado badan iyo axaadiis badan arrimahaas ka hadlayaan waa ay jiraan xasaas loo yeelaa oo ma aha caba bulshada inay gacan noqoto iyadoo gaar ahaan dadka jilicsan oo duruufaha qabteen sida intaan agoon oo kale diinta meel weyn ay kaga taallaa ilaahi subxaana watacaala qur-aanka uu nagu amray inaan wanaag uga shaqayno ويسألونك عن اليتامى ويدينayaan agoonta arrimahooda والإصلاح لهم خير سبحانه waxaa ku tiraahdaa war kooban oo ah wanaag in loo sameeyo ayuu khayrku ku jiraa marka wanaag samayntu wax walba ay noqon kartaa waa kelimo yar oo kooban laakiin macno badan ku fadhiista marka sidaas su-aasha u weydiinayso oo diintu agoon maxay ka tiri wanaag in lagula dhaqmo si fiican loo koriyo maalkooda loo xanaaneeyo caafimaadkooda waxbarashadooda aad iyo aad isaga saaro bulshadii agoonta dayacday ayadoo way dayacmaysaa marka aad iyo aad ay muhiim u tahay in la dareemo agoonta dadka muslimiinta ah ilaahay dhaqaalaha siiyey marka laga hadlayo xanaaneynta carruurta maxay intuuda maalkan asal ahaantiisa ilaahay baa iskale asaga ayaan qaybiya qaar waa loo badiyay dadka ka mid ah qaar waa lagu yeeriyey qaar waa dhexdhexaad waa qaybin ilaahay noo tahay ساس إلهي يقولي نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فكأنا يعني مشروع وقيمنا كاللوبة دي لو ما بدني إنه في عينه أو في عينه وقدرات لو ما بدني كاللوبة يريني لو ما يريني إنه بينه لكن إنسان إلهي ما يسين أن إيمانك علينا أو حاجة ما هو هرب إنه قطعته ما وهيستوي إليه في حدة كانوا كفاية وكتبه
si marka intaa u dhicin ayaa aniga waxaa loo soo jeediyey insaan xoolo la siiyey oo xoolihii u arkay in dadka looga sarreysay uu ku fiican yahay dhanka kale qof aan waxoogaa yani lagu yareeyey waxweyn la siinin oo haddana u arkay aniga maxaa waxay ii siin waaya saas ilaahay wuxuu fa ama insaan idaa mabtalaahu rabbuhu fa akramahu wa axana فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. أنت أصلا تصور شيء يقول لك إلهي الامتحانات وما تصير وكلها إلهي هو كلامي وما أقول لي يوم لا يقول كلامي كي ويا يقول كلها إلهي هو هذه ما أقول سوى بس حالي كلا أهل القصاص أقول لك يا لها ماشي مع طول يكون جرتو أما في عناصر كسر بحدوته وهب أوامر ولا ولا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما يعني مركا يعني أوامك ما كرامين إنسان مركا كرامين وحيد كل كأوامك إلا كرام وحيد مركا الله ما وصيه وأوامك فعلا قال وحسية كرامة الله سينايا محايا أوامك وحالي فضل قليل لا كرامين تسوحا كمدا ماذا حدي الله مصر قلبه وكجع جلعاء انت تن قفك قعنتي سؤال قاعدين نقمتي سمسحة انت عيلك وحسنات يهدايا ما كانت تشبه تسيسا dadka xoolaha haysta sida ilaahay uu dhiirigeliyo inay xoolahooda ay wax awoonta ka siiyaan qofkii aan waxba haysanin xataa waxaa la yidhi awoonta madaxiisa masax qalbigaaga kugu jira caayo oo masaxaysa awoonta masaxaysa madaxiisa ajirna ka helaysa marka tinta inta ilaahay la tirikin xasanaad leeg hal mar oo gacanta madax laga masax awoonka diin ugu helaayo diin maxaa u malaysaa lana masaxo xoolana la siiyo marka dadka ilaahay xoolo u dhiibi يعني وين وقالان إن دتك احترام يعني هم أوانت ساسا القرآن كمان كبرت يعني عاطفة وبسوء واحد الله يقول دائما يعني مثل إيه بسورة النساء وبسورة الله أوانت إيه وحلوقته يعني روح وحالة خصوصي هذا أصور النور يعني حالة حتى سوق هذا هذيك وبنتي عروض هذه وكتبتي أنت أكمل أنت وقبل وكنت جرتاي عروض هذه بناك أي جوان سيرة ذلك وحالة وجعلها طبعا قفل بحفل الآيات inuu jeclaan lahaa ilmihiisii dadka ay la joogaan markaas ee bulshada waajibka saartay ka soo baxaan ilmihii loo buuxiyay booska aqoon ka tagay waxaan gudaha xarunta anadool educational center kula kulmay caruur badan oo agoon ah waxaa ka mid ahaa axmed qadar daawud cali waxa uu dhigtaa fasalka labaad ee dugsiga sare waxa uu iiga sheekeynayaa sida uu aabihiis u dhintay dhimashada aabihiis kadib waxa uu dareemay iyo moraal ahaan maanta sida uu yahay waxaana ku dhintay si aad iyo aad u naxariis daran waxaana ku dhintay gobolka ku dhintay muslimiin kabacdi ase wuxuu ahaa nin safarey baawur waday waa nabilah baawurkii waxaa la saarnaa markii niman kale tuugada dhexe kasoo raaceen marka baawurka markuu waday nimana xidheen oo masaakiin waa arkay baawurka la faraaqo markaas wuxuu dhaha nimankaan oo saddex tiro aadayutiin wuxuu dhaha marka waa saarina ay guudida marka xidhana aniga kula socoya nimankaas soo qaaday nimankaa masaakiina waa in badan burcayna kasoo lugeeyeen marka inaa hore usii aqaano waaye hay marka sidii oo lagu afgartay marka lasoo saaray baawurka wuxuu leeyahay laba qaybtoosa ari lagu soo marka saas loo soo saaray ee dhex soo maraan mid ka mida nimanka xanaaqay markaasuu baawurkayga degtay aabe marka ninkaas ilmaadeere ahayn marka uu isku daba degtay codhaa nin waxaa lagu raacay nimankaa masaakiina waa naxariista ilaahay ma ka tegisan nimankaana u gargaarna waaye markaas sidaas ninka dili marka ninka qoro watay xabadii koowaad marka qoraha ku watay marka qasmada uu jirtay ninka xabadda waa ku katibtay marka koowaad wuxuu dhahay sacaaw idiin wata wuxuu dhahay markaas wuxuu dhahay waxaa ku dilaayo waxaa kaadha dhowrsana markaas marka labada dale sidoo kale way ku katibtay mar saddexaadii xabadda ku dhacday soddon qasnadii lagu dhameeyey oo markaas bar loo duugaal waa suuf jooriyaal oo suufa lagu gufiyey sida marka lagu xiyey marka dambe sidii lagu duuy marka aniga laba maalin lasoo sheegay maalinka saddexaad anigoo 6 sano jiraan lasoo sheegay maa ku dhintay marka sidaas maalinkaas waxaa laga bilaawo aniga dad fiican la garab qaata maysan adeeradeena kuwana dalka dibadiisa jira kuwana inta iska joogeen markaas wax si fiican oo dareelimaanaysan ilaa iyo intaa kasoo gaaro markaas waxbarashadii koowaad waxaa ka bilaabay iskuulka alfidri markaas sidaas waxaa ool bareeftaa lagu diray alfidri ama alfidri soo dhiganaya nasiibkii meeshaan ay soo baxay meeshaan nasiib weli markana wax ka barto waxaa jiro caruur kale oo aad u da'yar oo aan la kulmay
sheekadan ayaana dhex martay. aabbaha uu dhintay in yar agoon baa tahay maxaad jeceshahay inaad noqoto maxaa rajaynaysaa maxaad ku gaaraysaa maxaad ku gaari kartaa walaalada kula dhashay iyagana mustaqbal bay doonayaan aabbaha uu dhintay marka waa inaad dadaasaa soo maha waya ii sheekee maxaa kugu yaab badnaa halkan ku aragtay waxyaabaha la yaab kale aad ku aragtay maxaa kamid halkan maxaa ku farxad geliyay marka goob weliba nadiif ah sida markaa hooyadaan u tagtaa maamaha ka waran goorma aadaan marka khamiista xaafadda aad tagto see walaalaha kuu soo dhaweeyaan iyagoo aan 4 maalin ka badan ku arag u soo dhaweeyaan أول سلام عليكم. marka qof dhalinyaro ah uu dadaal muujiyo himiladiisana uu ku guuleysto waxay Soomaalidu tiraahdaa dadaalaa waa uu gaaraa. Ustaad Maxamed Nuur Cali waxa uu ka mid yahay mas'uuliyiinta mu'assasada Samsam Foundation oo ah hay'ad ka shaqeysa baxnaaninta agoonta. isagoo aad u daayar ayuu aabihii geeriyooday. waxa uu barnaamijkan iiga sheekeeyay dhibta uu ka soo maray aabba la'aanta iyo bilowgii heerar kala duwan ee waxbarasho oo uu soo maray. waxaan ka mid ahaa dadka ku dhashtay magaalada Muqdisho 1985 waxaan kaloo aan ka mid ahay dadkii wax ku soo bartay agoonnimada oo runtii barnaamijkan ay sameeyeen Royal TV-na aad ugu faraxsan oo u arko inuu yahay barnaamij qiimihiisa oo aad u weyn yahay maadaama laga sheekeynayo agoonnimada. taariikhdeeda haddaan u laabto dugsigayga hoose iyo dugsigayga dhexe waxaan ku soo qaatay college magaciisa la yiraahdo albirri ee ku yaalla degmada Wadajir. waxaan kaloo waxbarashadeeda dugsiga sare aan ku soo qaatay iskool la yiraahdo magaciisa Ubay ibn Kacab ee ku yaallo degmada Dharkiinley. magaciisa dadka ay u yaqaanaan oo caan ku ah iskoolka Kuwait. iskoolkaas markii aan dhameeyay 2007
saddexdii 2010 iyo labadii sano dugsiyeedkaas waxaan haddana ku biiray jaamacadda Muqdisho waxaan ka mid ahay ardayda jaamacadda Muqdisho ka qalin jebisay sano dugsiyeedka markaa 2006 2007 gaar ahaan kulliyadda waxbarashada qismiga social science ama taariikhi juqraafi waxaan shaqo ahaan aan inteeda badan nolosheeda aan ka shaqeynayo isla kolleejka aan wax ku soo bartay ee ku yaalo degmada Wadajir caruurta oo ah hadiida ugu qaalisan ee uu eebbo ku manaysto adoomadiisa qaab sidee ah ayay korsiimahoodu ku bilowdaan dhibaato intee la eg ayay waalidku ka maraan waa maxay farqiga u dhaxeeya canuga ku barbaara agoonnimo iyo canuga kale ee waalidka leh su'aalahaas iyo kuwa kale ayaan weydiiyey hooyo Faadumo Aadan Cusuble oo kamid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ahna xogeyaha joogtada ee ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed marka cunuga markuu kolleejka ku barbaaro wuxuu horta faa'iidana waa helaya dhibaato qasaarna waa ku jirtaa qasaarada ku jirta waxay tahay mararka qaar maxabadii iyo kalgacaylkii waalidnimo oo xiriirka dhexmar la cunuga iyo waalidka ayaa horta meesha ka baxay sababtoo ah waxaan nahay hooyooyin waxaa aabayaala jooga markii ubadkeena haddii ay seexdaan caawa waxaa dhacda aniga markaa magaalada ku soo daa ama shaqo aan ku soo daa oo ubadkayga ay hore anoo hortay seexdaan kuma kalsoonaan jirin jiifkooda calooshooda taaban jirin aabbaha waxaa laga yaabaa markuu yimaado inuu yidhaha hebel wax ma siisay hebel wax ma cunay heblaay wax ma cuntay ilma calooshooda taaban jirin taasna waxaa waa kalgacayl dhexdaa laakiin cunuga markuu kolleejka kaaga soo bariyo oo kolleejka uu ku jiro oo aad wiigii maalin aragtid ama aad arkinbo waxa waaye xiriirkaasaa meesha ka baxaaya jacaylkii waalidka iyo cunuga meesha waa ka baxaaya runtii midna faa'iido oo u tahay cunuga wuxuu helayaa bulsho kala duwan oo muxuu ahay kala fikir ah oo kala muxuu ahay wax walba kala duwan ayuu cunuga meesha ka helayaa wuxuu baranayaa dad badan wuxuu yeelanayaa xiriir bulsho wuxuu yeelanayaa yacni wuxuu isleeyahay tartan yaa lagaa badin canugu ilmaha waa aragnay kuleejooyin ku kora waagii hore kuleejada canuga ku kora iyo canuga gurigiisa jooga inta badan 80% waxaa waxbarashada ku wanaagsanaa ilmaha kuleejka ku kora Ustaad Cabdiqaadir Maxamed Hiraabe oo ah madaxa xaruntan waxbarasho ee Anadool Educational Center ayaan kala sheekaystay qaabka ay u xushaan qabashada ardayda agoonta ah iyo cidda ka taageerta alxamdulillah tabalan waa arta agoontu xorashadeedu siyaasad ay noo leedahay oo ku saabsan qaabka loo xoranayo taas oo maanta baqna cunuga da'diisa ayaan kow shardi ah iyo agoonta uu leeyahay sidoo ugu faa'iideysan lahay mashruucan baaxad weyn oo socda oo loo kor loogu qaadayo agoonta Soomaaliyeed يعني xorashadayna inta badan waxa ku salaysan tahay gobolada ayaan ka keenay magaalada Muqdisho inta badan ay afayeen dagaaladii suuqyada oo agoon aad u fara badan ay dariiqada jiifaan iyo ku dhibaataysan meelaha liidliita khaasatan kaamamka qaar kamid ah waxaan laga soo qoraa yani iskuulaadka ay soo mixin badan siyaasadeeda waxaan sameynay dhammaan gobolada Soomaaliya gobolka oo dhan ayaan taqriiban juhd ku bixinay inaan ka soo wada keeno oo qaybino سيبنا إن بدن واقع إن بدنا كسر حنا قالنا مقدشو مركا ده أنكو قادر إنه من توانجر نقبل لعبة توانجر إلى سدحي توانجر مركا ساس أي حول شيء أنت بدن وحنا سمعنا one type يعني تويس كذا بتاعنا شيء يعني تويس يعني أنت بدن تويس اسمه روح نقصين يعني مرة ما نقصين بيلبك مرة نقصين يعني لاي يعني ما نكره بدنا قادنا مرة عتينا كابنا لجوكتين بريسي باستو ونوعي بدن يعني يذكر ولا يقولون يعني سؤال أنت سمع سمع عشان غير الدنيا مركي تعوضان سوري إن أي واحد كله أيجر لها إلى محاسبة كلمة فعلا أنا واحد سومالي يالي سلام أو تيبريني يعني سمعنا أنا وصلنا يعني مثلا حبيبك 10 كله زي ما دام قار خد دايري يعني ما نسينا لكن سوجي شغل خاص كان في الموضوع إلى كل شيء يعني الصعب زمزم فاونديشن ايتش ما كمان ولا شيء مستري يا كمان كده يا باهي مكسب هذه الأخرى إلى أن كانوا سبب خارجين يعني ما كانوا أكثر كان تستفيد سوالين في شيء كان كمان يعني كمان يعرفوا إذا فلق
dad badan markay arkaan siyaabo kala duwan ayay u fasirin karaan ka waran cidda ka taageerto nolosha iyo gebi ahaanba arrimaha waxbarashada masha allah waa caruurtu halkan waxay loo dhisa waxay ahayd yani inay ku farxaan in lagu garaaco oo ay ku ooyaan oo ay dareemaan kelinimo waalidkooda dareemaan waa waxaan la dagaalanayno ciyaar baahiyin waa ciyaarsiina ay baahiyin TV hadii yani shay ay sheegtaan intii la qaban karo Soomaaliya ka suurtagal ah laga sameeyo waanu sameynaa اسمها غرفة مضمة زمزم يا جج ولا اسمها يا سمي dalka Soomaaliya oo in ka badan 24 sano aysan ka jirin dawlad shaqeysa ayaa waxa ka dhacay dagaalo sokeeye kuwaas oo sababay in caruur badan ay agoontoobaan arintaas ayaa keentay in dawladaha Sacuudiga, Turkiga, Qatar, Oman, Kuwait iyo kuwa kale oo badan ay garab istaagaan caruur badan oo Soomaali ah oo sanad walba ku agoontooba dhibaatooyinka ka dhaca dalka Soomaaliya daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkii gaarka ahaa aynu kaga hadlaynay dhibta ay noloshu kala kulmaan dhalaanka agoonta ah diyaarinta barnaamijkan waxa gacan igu siiyay dhammaanba asxaabta Royal TV ee xarunta Muqdisho dhinaca kaamirada waxa uu ahaa Nuur Maxamed Bare Abbas Abdi Xaashi ayaa farsameeyay anigoo Aweys Maxamuud Jilco ah ayaa idin socodsiinayay inta aan ku kulmi doono saaxiibayaal barnaamijkan la mid ah waxa idin kaga tagayaa amaana Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحاني دريل أنك ما أشوف إلى أوذن بن كأقويا يا إلى أوذن بن كأقويا يا أكئيغو أنقذا أقلك ما قالوا أحاني دريل وشو أكئيغو أنقذا أقلك مقالو أرحاني يدريل عندك ما وشو لغا أو ذنبان كاقويا يا لغا أو ذنبان كاقويا يا saddexaadii xakunta ku dhacday suuda qasnadii ugu dhameeyay markaas barnaamij waa suuf doorayaal oo suufa lagu difay aabay wuxuu ka mid ahaa dadkii ku dhintay dagaalada ehli wadankeena ka dhacay 1991 qiyaastii waxaan qiyaasaa markaas inay ahayd 6 jir ilaa 7 jir meelaas maxaa farqi ah oo u dhaxeeya nolol ahaan caruurta agoonta ah iyo kuwa la nool waalidiintooda cunuga markuu ku barbaaro beydkooda ama aabii hooyo wada joogo bulshada teeda qoyskooda uu ku dhex barbaaray iyo markii kuleejka cunuga la geeyo farqi weyn u dhaxeeyo maxay shareecadu ka qabtaa in la taageero ilmaha yar ee aabba la'aanta ah waa mawduuc barnaamij gaar ah oo wariyaheena Aweys Maxamuud Jilco ka diyaariyay dhibta ay noloshu kala kulmaan caruurta yaryar ee agoonta ah micnaha agoon waa marka ilmo yar aabbahood uu geeriyoodo sidaas ay nabadi dadka caruurta ugu magac daraan naaneysaha agoon Allah ayuu gargaar agoonta u gargaar Allah ayuu gargaar agoonta u gargaar Anadool Educational Center waa xarun waxbarasho oo ku taala duleedka degmada Wadajir ee gobolka Banaadir waa goob leh dhismo bilic qurxoon waxa halkaas ku nool ku dhawaad 300 caruur agooman ah
gudaha xarunta waxaa ku yaalo fasalo loogu talagalay in caruurta wax lagu baro iyo goobo lagu cibaadeysto darjiiman iyo goobo loogu talagalay in caruurta ay ku akhristaan cashirada ay qaataan waxaa ku yaalo goobo loogu talagalay in lagu cunteeyo iyo meelo ardayda waqtiyada fasaxa ay ku cayaaraan sidoo kale waxaa ku yaalo qolal loogu talagalay in caruurta agoonta ah ay seexdaan qol walba waxaa yaalo sariir iyo qalab walba oo loogu talagalay in nolosha lagu maareeyo albaabada qolalka ay jiiftaan caruurta agoomada ah mid walba waxaa ku qoran magacyada asxaabtii hore ee diinta ehelka u ahaa maxay tahay sabab ibtaladii dalkeennan heshiiya kuwii agoomoobay kuwii soo aruuriya noo abaalgalaye abaalkiina magudi karna waan ogsoonahaye abaalkiina magudi karna waan ogsoonahaye ilaahay idin bari jannada inaad ahaataane ilaahay idin bari jannada inaad ahaataane muuqaalka arday walba subaxan aad buu u wanaagsanaa wajiyadooda waxaa ka muuqday diyaargarow waxbarasho arday walba oo agoon ah kuna nool xaruntan waxa uu toosaa subax walba isaga oo kaligiis ah caruurtan oo u badnaa kuwa aad u da'yar ayaa waxyaabaha la baro waxaa ka mid ah maadooyinka asaasiga ah tarbiyada islaamka iyo qur-aanka kariimka وقتها يعني وفاء عمر بن الخطاب وقت لبعض كولج أغونتا كولي وكيسان وقعدي اوكي بس قبل وضع أبو بكر عمر عثمان إلى 10 المرشدين أصحابه أسباب كانوا يقدرون وحاولوا يكونوا بخار في الإسلام كان سوغاس xaruntan waxaa dhismaheedii maalgeliyey hay-ad islaam ah oo fadhigeedu yahay dalka turkiga waa subaxnimo axad ah saacaduna waa 7:30 daqiiqo boqolaal arday ah ayaa ku sugan barxad weyn oo ku taala gudaha xarunta waxay sameynayaan jimicsi kala duwan sidoo kale ardaydan ayaa soo bandhigaya suugaan ku bixaysa luqadaha Soomaaliga Ingiriiska iyo Carabiga arday asluubiya wanaagga baa ku aastayay arday asluubiya wanaagga baa ku aastayay ibtaladii dalkeennan heshiiya kuwii agoomoobay